وإيانا واحد مغلس في رغويه بهشيلا نما يهو يكبر يهو hortaana ku ismaanaan khilaafin marana is khilaafsanay waxa ogeedeen saddex qodob oo laga hadli jiray oo doorashada ku saabsanaa waa ka koobaade arrinta gobolka Gedo waa talabaade dhismihii gudiyada iyo dareenadii ka dhashay iyo saddexaad oo ahayd Somaliland annagu mar walba waxaan qabnay khilaafka ku saabsan Somaliland inuu yahay gacan ku rimis khilaaf la abuuray saaxiibadeenna koonfurtuna inagu la daarteen ismaanna khilaafin waa la abuuray khilaafkeega ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya raxmatullah maxamed xaaji ibraahim cigaal ayaa la yidhi hadda Somaliland tihiin nin ajnabi ah weydiiyey waa maxay xikmadda Soomaaliya inteeda kala dheertiin oo aad heshiiska ku tihiin wuxuu yidhi we are left alone farahana laga qaadayo annaga arrimaha iyaga ka tashanayo hoos isugu tashanayo heshiinay marka nima yahay intii hore horta koonfur baa gacmaynaysa markii farahana laga qaaday la yidhi bal waa idinkaas isu taga annaga hoos baanu isugu nimid waan tashanay wiilal iyo gabdhaba odayaal iyo dhalinyar aakhirkii heshiiskii aad ogeedeen oo annagu gaarkaanu ahay ayaanu gaadhnay insha allah heshiiskaana waanu fulin doonaa waanu fulinaynaa waxaanu mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha doorkii runtii shariifka ah mar walba doorashooyinka oo dhan buu mas'uul ka yahay mar walba mowqifkiisu xawaarnimada isu taga soo heshiiya hadii cabdi xaashimo kulanteen halkee wax marinaysaan markastoo arrimaha doorashooyinka runtii hogaaminta iyo odayeynta ra'iisul wasaaraha waa ta halkaana soo gaarsiisay aakhirkiina fursad inaanu annagu garanno oo doodno oo nidhaa aynu arrimaheena dhaweyno na soo gaarsiisay marka heshiis baanu nahay insha allah heshiiskeena waa fulin doonaa waanuna ku dhaqmi doonaa haddii qayladhaan iyo halkan naga caawiya iyo halkeer naga taageera aan istusnana mar walba taageeradiina diyaar baanu u nahay iyo wax kastoo aynu gacan ugu siin kartaan laba shay baa aasaas u ah waa runoo 750 xildhibaan ee labada aqal ee gobolada waqooyi Somaliland ka soo jeedaan waxa lagu qabanayaa caasimadda annagu laba shay baan markaa u aragnaa inay aasaas u yihiin doorashada dad xor ah baan nahay waxaanu ballan qaadaynaa doorasho xor iyo xalaal ah inay dhacdo oo si xor ah loogu tartamo wiil iyo gabadh kii soo baxaba kursi dad isku deegaan leeyihiin baa ayaa loo tartamayaa loo wadayaa kow markaa inaanu madax bannaanahay una madax bannaanaano doorashadayada faragelin la'aanna aanu ku qabsano oo walaalaheena koonfurta waxnayna saaxiibayaal waa ku mahadsantihiin inaad faragelintii naga dayseen ha ku celinin oo markay doorashadu socoto faragelin yaanaan arkin haddii taasi dhacdana annaga doorasho qurux badan waanu ku raacsanahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud doorashada ugu dimuqraadisan ugu xorsan ugu quruxda badan ee Soomaaliya ka dhacda waxay ka dhacaysaa xamar madaxweyne baa jooga insha Allah ra'iisul wasaare baa jooga oo kadib madaxweynayaashii tartamaya baa jooga ra'iisul wasaaraha korjoogteen iyo garwadeynka ah nimankii aynu u bixinay beesha lixaad meesha kaliya ay soo gaari karaan ee oran karaan sidee wax u socdaan iyagana moogtahay inuu doorashooyinkan ka soo shaqayn jiro observers iyo waxyaabahaas goob joogayaasha iyo korjoogteynta doorashada ayay ka shaqeeyaan marka ta ugu xorsan waa tan weyn cid boobaysaa ma jirto iskuulo boolisiya iyo afisiyoni iyo meeshii kastoo nidhaa waa ku qabsanaysaa noogu habboonna diyaar baanu ahay inaan ku qabsanno ay ka dhacdo marka waxaan leeyahay qof kastoo hunguri ku jiro xildhibaanadeennii 57 ahaa waxaan jecelnahay inay noo soo wada noqdaan qof kastoo raba inuu la tartamo oo hunguri ku jiro iimaanka isgeli doorasho xor ah aynu insha Allah u dhaqaaqi doonaa waxaan ku soo gabagabeynayaa mahadnaq ugu horreyn waxaan u mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo odayeyn iyo mas'uuliyad iyo isxilqaan run ahaantii muujiyey waa nin reer Somaliland ah Somaliland ka soo shaqeeyay geedgeed iyo guriguri iyo degdegmo iyo tuulo yaqaan waxa kaloon u mahad celinayaa gudoomiyaha maxkamadda sare run ahaantii doorku ka qaatay iyo isku soo dhaweyntii iyo inuu heshiiska qudhiisa diyaariyo aqoontiisa sharci
يوحي حكمته كوكردين كرومركياني أو عبد الحاشم دوميو أن نريد كسر شقة واسع لأننا قضبضي وسوق رسيبيز عن قوة قاعدني كل سوق بكمين وحكروا المحل علينا يا مدحوناش دولة بغلاد ذكر عن تيجي كله مركز تيسير مادان لها أهمه الرميست أو إذا كسر حليستا مشرحين تا ومر والبا بدوهم مشرحين تا وريوا هنتين يعني وحيرنا رميستا يبغنا مر والبا جرب تاعنا وقدام بين نين عن صاحب دارنا نهاي وضي تقامات سومالي لنا عام ولكن بقر عثمان جورمدو واسمه كسوق اجتماعي إنه نقول بيرين كراي بقر عثمان تقامان أيان سنو مهد علني يدور كلها وما تنتهين إيه حل بعنا إيه وضياش الله وضع كل ولالية كبدوي قراها شعب كيجيها سومالي لنا أريدنا سوق بجويسنا الله أنت سوق كوبيا وما تنتهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول بهالشيء الطبيعة خلق الله على الخير أيضا إن شاء الله وما تنتهي. بيقول سلام يا رب كستا اسبر برداء